shirkani wuxuu ahaa shir abni oo runtii looga hadlahay arrimaha amniga ee dalka waxaana shirkani maanta shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda ee federaalka Soomaaliyeed mudane Xasan Ali Khayre iyo waxa nagala soo qayb galay madaxweynayaasha ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle waxaana sidoo kale shirka ka soo qayb galay dawladaha saaxiibada aan nahay ee nagala shaqeeya arrimaha amniga waxaana lagu bogaadiyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee guulaha ballaaran ay ka gaareen ururada argagixisada ka dagaalamagayga Soomaaliyeed waxa kaloo shirka lagu mideynayay sidii loo mideyn lahaa ama loo taakuleen lahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guud ahaan runtii shirka wuxuuna ahaa in howlgallada loogu soo horjeedo ururka argagixisada ah in la dardargeliyo guud ahaan dalka laga bilaabo meel kasto ii sheeg ay ka joogaan runtii taasna waxay ahayd arrin aad iyo aad muhiimadeeda u leh guul badan insha Allah ta'ala aan rajaynayno in laga gaaro